hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta dhammaan kusoo dhawaada muuqaal kale oo aan maanta kaga hadli doono qayb ka mid ah cilmi baarista. muuqaalkan maanta waa muuqaal aan ugu talgalnay sida kuweshineerka loo develop gareeyo. kuweshineerka waxaan ka duubi doonaa laba muuqaal. muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha aad isticmaali karto tips and tricks si aad kuweshineer items u hesho. su-aalaha aad dadka weydiinayso sidee aad ku heli kartaa. muuqaalkan aan kaga hadli doonaa. muuqaalka soo socdase muuqaalka labaad waxaan kaga hadli doonaa sidee loo qoraa kuweshineer adigoo isticmaalaya word ms word. marka qaybta dambena technicaliska iyo sida loo qoro su-aalaha ayaan gali doonaa, laakiin maanta waxaan diiradda saaraynaa su-aalaha sida loo helo. intaynan guda galin ka hor waxaan rabaa inaan markale idin xasuusiyo codsina iga tahay inaad videogan like dhahdo, channelkan aad subscribe dhahdo si aan halkan ugu kulmino bulsho Soomaaliyeed oo waxbarashada wehel ku ah. haddaan guda galno maanta waxaan rabnaa laba shay bis inaan barano. labada shay waxa waaye number 1 waxaan rabnaa inaan barano maxay muhiim u tahay mar walba su-aalaha questionnaire markaad develop gareynayso inaad mar walba ka fikirto labadan issue validity iyo reliability. maxaa la dhahaa wax yar kadib aan sharxi doonaa, laakiin mar walba waa questionnaire hal su-aal haddaa ku darayso questionnaire-kaada waa inaa labada issue ka fikirtaa. ha isaga darin hana ka dhimin su-aal questionnaire-kaada adigoonan labadan issue si fiican u fahmin. su-aasha labaad oo arrin inaan fahno waxa waaye sidee su-aalaha looga soo baxsadaa papers kale oo ay dad qoreen. marka labadan topic-aan maanta baranaynaa. aan bilaawno marka questionnaire qoristiisa ha bilaabin adigoonan fahansanayn issue-yadan reliability iyo validity. waxaan rabaa marka reliability-ga maxaan ka wadnaa. reliability waxa waaye questionnaire-ka soo topic ma haysatid adiga, topic-gaasna soo dhinacyo kama fiirinaysid, dhinacyadaas aad ka fiirinaysidna qayb kasta soo su-aalo kuma cabiraysid. su-aalahaas ma ka turjumayaan oo wixii adiga rabtay same result ma keenayaan haddii qof kale uu su-aalahaas dad kale weydiiyo oo cilmi baaristaada sameeyo. marka reliability waxaa laga wadaa consistency, su-aaluhu sidoodu ma ahaan doonaan. marka wax yar waxaan idin tusaa fiiriyaa. tusaale ahaan this is my questionnaire soo maaha. ciwaankeyga haddaa xasuustiin wuxuu ahaa determinants of e-commerce in Somalia. Soomaaliya iyo e-commerce-gaan fiirinayn. topic-gaas hal dhinaca aan ka fiirinaya wuxuu ahaa awareness. aan si fiican idin tuso. it was awareness. okay, awareness-ka that is my first variable oo topic-gii ku saabsan. awareness-kaas marka waxaan haystaa 5 su-aal. okay, 1 2 3 4 5. marka meesha waxaa la rabaa su-aalahan are they reliable. markaa beri soo aruurisid 100 qof 200 500 qof ka soo aruurisid questionnaire-kan oo aad analysis ku bilaabid SPSS iyo waxa rabtid isticmaal, haddii aysan reliable ahayn dadaalkaagii dhan meel cidlo ku baxay. u fiirsiya 500 qof inta waqti ku bixisay ka soo aruurisay marka analysis ka bilaadin wixii ku dhahay SPSS-ki wuxuu ka yaryahay 0.7 is not reliable. hadhow marka analysis ma u gudbi kartid because su-aalahan mabar ahaanba reliable ma lagu cabiri karo variable-kan laguma cabiri karo. markay meeshaas tahay intahay dadaalkaas maxaa dhibaatadaas u galaysaa oo waqtigaas inta kaaga baxo dhowna lagu dhahaa reliable ma waxaan. dhibka waxaa marka intuu ka imaaday wuxuu ka imaaday markii horeba waqti badan inta qaadatay reliability-ga ma iska fiirinin. marka su-aalaha haddii hadda aad dhahdid ani tusaale ahaan gacanteedan ku qora haddaa dhahdid it's okay, gacantaada ku qori kartaa, laakiin reliability-gana hadhow 0 ka noqon doono ama wax 0.7 ka yar. hadhow marka su-aalahan marwalba gacantaada haddaa ku qortid reliability-dooda say ku xaqiijineen. that is waxa waaye meelaha ugu muhiimsan oo rabo inaad ka fikirtid haddii aadan dad expert u geynaynin oo su-aalaha iyo fiiriye dhehaynin. marka meeshaas marka reliability inaad ka taxadirtid aa rabaa. hadhow bilo kaaga bixi doono questionnaire dadaa safara iyo lacag transportation kaaga bixi doono wixii soo aruurinaya kadibna waxaa la dhahaa ma ahan reliable. si aad ugu fogaatid marka arrintaas waxaa fiican
questionnaire ay dad kale hore u qaateen oo hore u develop gareeyeen ay su-aalahaas soo isticmaaleen wanaagsan inaad adigana isticmaasho sababtoo ah waqti reliability-ga iyo xaqiijintooda kaama rabo because waa questionnaire adapted ah oo meel kale aad ka keentay qofkaasaa marka soo tijaabiyey reliability waxaas validity-gan maxaa waaye validity waxa waaye collection methodka aad isticmaalaysid qaabka wax kusoo aruurinaysid questionnaire waxay rabaa naqdaane ma yihiin validity valid ma yihiin micnaha waxa waaye waxaan waa cabira aad dhehaysid ma cabirayaan ma yihiin wax cabiri karo questionnaire aad rabtaa inaad dad kusoo weydiisid fikirka ay ka qabaan e-commerce Soomaaliya okay questionnairekaas ma yahay wax lagu cabiri karo e-commerce marka mar walba collection methodka isticmaalaysid waa inuu valid aad siin ahaa marka normally validity is just a matter of understanding laakiin meesha ugu muhiimsan oo la rabo inaad waqtiga ugu badan ku bixisid waa reliability-ga take care of this reliability questionnaire su-aala gacanta inta ku qortid ha isku dhihin su-aalahana macalin gudbinaa macalinku way dhaafi kartaa oo u malayn karaa inaa adiga su-aalahan gacantaada meel kale ka keento wuu u malayn karaa laakiin beri marka spaces aadid reliability meeshaas kaaga dhiman doonaa marka si oo sax ana daatada si oo illegal ah inaad gacmaha la gagashid oo adiga gacantaada reliability ku taabatid ay noqonaya oo su-aalihii dadka jawaabta ay soo bixiyeen wax ka babadishid mana ahan wax sax ah marka sababta ugu muhiimsan taas waay marka waxaan rabnaa marka maanta adoo labada arrin ka fiirinayno maxaan idin soo jeedinaa ma idin hayaa talo iyo tusaalooyin aad isticmaali kartaan si aad questionnaire u develop garaysa number 1 questionnaire-ka fiiriya markii topigaada uu ka kooban yahay qaybo kala duwan keegoo kala hadda awareness 1 perception 2 payment 3 consumer trust 4 iyo propensity to shop 5 qayb waxaa dhici karto inaa weysid hal article oo 5tanba questionnaire-kooda ku siin karto because 5tan wax isla baaraya inaad isla heshid way adag tahay markay saas tahay maxaa halka waxa waaye 1 waxaa la isticmaalaa different sources waxaad raadinay qayb kasta oo hal variable-kaada ka mid hayso su-aalaha ay weydiiyeen aad soo qaadaysaa author kale raadinaya sina oo topigaada qaybtii kale su-aalihii ku saabsan weydiiyeen waa isku keenay marka questionnaire-kaada waxaa ka dhigay 5 meel 3 meel 4 meel kala duwanaa ka keenaysaa su-aalaha kadibna waxaa leedahay meelahaasaan ka keenay waa mention garaynaysaa that is the best way loo sameeyo waa maxaa kaloo sameyn kartaa questionnaire-ka marka normal waxay sameeyaan sida ugu caansan waxa waa questionnaire-ka haddii article-ka markaa furtid hadduusan questionnaire lahayn email waxaa loo diraa qofka qoray article-kaas laakiin waqti qaadanaya haddii waqti uu qaadanayo maxaa kaloo xal sameyn kartaa appendix-kooda la fiiriyaa ina email ku jiro haddii aad ka waysid email loo diraa laakiin labadan process bu haddii ay ku suurtagelayo maxaa sameynaya marka waa waxa aan rabno inaan article-kan muuqaalka maanta idinku tuso waa arrintaas waxaa la fiiriyaa si fiican ila socyaa meeshan waxaa la fiiriyaa qaybta resultiga markaa fiiriso oo article-ka aa furto figuriska aqrinay adoo aqrinaysid meeshaasaa su-aalaha qofkan u isticmaalay laga fahmi karaa sidaasaan ku develop garanay questionnaire-kaada haddaan idin tusaa okay step 1 waxaan dhahnay article-kan kasoo qaad article-kan aa rabtaa e-commerce purchase intention in emerging markets the influence of gender and culture article-kan wuxuu ka hadlaa dumar ahaanshaha ama rag ahaanshuhu saameyn ma ku leeyihiin ku talagalka uu qofku rabo inuu wax gato internetka wax ka gato ma saameynaya rag ahaanshada ama dumar ahaanshuhu sidoo kale dhaqankaada saameyn ma ku yeelan karaa inaad internetka wax ka iibsato article-kan marka waa ka heshay lacala waxaan topigan adin ka hadlaysa waxaa rabtaa marka su-aalaha uu ninkan isticmaalay inaad adigana aa hesho authorkan see ku hele 1 waxaan dhahnay step 1 waxaan fiirinay appendix-ka ugu dambeeya reference kadib appendix ma leeyahay ninkan ma laha meeshan waxaa kugu cad reference kadib ninkan ma laha appendix therefore micnaheedu waxa waaye questionnaire-ka meeshan ma ka heli kartid qodobka labaad waxaa fiirinaysaa emailkiisa meeshan ka raadi waa kana marka emailkiisa waxa waaye dimitrios.rigas waa hal author kalena waxa waaye nadish.rias
uwl.ac.uk both of them waxay ka tirsan yihiin institutionkan marka labadaas email isticmaali kartaa isoo diraa dhehe like that takes time waqti waay marmar qaarna inay kusoo jawaabi karaan soo jawaabi waayaana suuragala maxaa xal ah aa sameynaya xalka waxaan dhahnay marka haddaa xasuustiin qaybta resultiga tag figuriska iyo hadallada meesha ku qoran akhri meeshaas questionnaire kasoo develop garay meeshaas waa marka waxaan rabnaa maanta inaad intuso hadda marka meesha aadaya waxaa aadaa okay this is the result section and discussion maho intaan aadaa marka waxaan dhahaa ninkan wuxuu isticmaalaan fiirna marka waxaan dhahaa the sample wuxuu ahaa Pakistan okay wuxuu ka koobnaa waxyaabahan female profileka dadka wuxuu ka koobnaa okay meeshan wuxuu isticmaalayaa profileska dadka demographic informationkooda si uu soo aruuriyin meeshan waxaa kow age uu isticmaalay age kasoo u dhisay waa kana wuxuu u dhisay 26 ilaa 30 kow 21 ilaa 25 labo 18 to 20 saddex hadda jaa hal su-aal qaabka loogu develop garay ninkan aa ka heshay maxaa waay age questionnairekaada dadku waxay weydiinaya agekooda maxaa waay agekana optionska dadka ay siinaysid saana kuwaana ka dooran karta kuwaana ugu dhigay 26 waxaa ka bilaabaya 18 to 20 21 to 25 26 to 30 and above qaabkaas hal xab waay kan labaad maxaa waaye wuxuu dhahay fiiriya marka wuxuu dhahay female iyo male uu isticmaalay sidoo kale waa 142 male uu isticmaalay female 142 waa female marka meesha maxaa kaaga cad that is the gender uu isticmaalaya waxaa marka si toos aad idin tuso figureska aadaynaa figureska si fiican tartiib aa u fahmaysiin figureska aad figureka ugu horeeya ninkan meesha waa kana wuxuu weydiiyey current employmentiga dadka intay ka shaqaysaa hadda su-aasha questionnaireka waa optionska uu qofka siiyey waxa waaye waa kow wage qofkan waa qof mushaarla ah labo waa self employment qof asi kaliis shaqaalaysiiye business leh saddex housewife guri joogto afar student mujada hal xab su-aalaha hadda haystaa waxaa haystaa qofka waxaa weydiinaya markaa rabtid questionnairekaada inaad ku dartid dadka shaqadooda ama waxay hadda yihiin markaa rabtid inaad ogaatid sidee wax loo weydiiyaa optionskana isticmaale waa kana qaab marka martid inaa reliability iyo maka fikirays markaan ninkan aaba isticmaale okay and this one intuu ku noolaa qofka westiga marka ma aha su-aal nala xiriirta waa ka boodaynaa internetka dadku imase jeer ayay wax ka iibsadeen okay su-aal noocaas aa rabtaa inaad qofka weydiisid qaabkee u weydiinaya ninkana su-aasha waa ka kuu weydi wuxuu ku dhahay 8 mar inta kasoo bilaabo waxaan dhehnaha hal mar ilaa iyo 5 mar uu qofkan internetka wax ka iibsaday hal option waay optionka labaad 5 mar ilaa iyo 10 mar bishii hal mar qof wax iibsadaa jiro weligiisba qof 2 mar iyo 3 mar wax iibsaday 4 mar ilaa iyo 7 mar 8 mar iyo wixii ka badan mujada su-aal labaadaa heshay sida loo develop garay haddii questionnairekaada aad u rabtay su-aal dadka weydiinaysa inta jeer internetka wax ka iibsadeen su-aasha qaabkan u dhig jawaabahana sii kadib su-aasha mid gaar waanay dooran karaan su-aashan reliable miya haa sababtoo ah ninaan hore u isticmaalay oo research ku daabacay adi marka uma baanid inaad kasii fikirtid okay waxaa rabaa marka qof kale internetka inuu qofku wax ka iibsado maxaa ku dhiirigeliyey su-aal ay haartan aa weydiis inspired from yaa kugu dhiirigeliyey waxaa igu dhiirigeliyey optionskana siinay celebrity ama joornaaladan ka aqriyey therefore saasaan wax ku gatay sidoo kale style in storeka aan rabaa inaan iska bedelo kow waxaan kaloo ka arkay blogskan ka aqriyay fashionka iyo waxyaaba ku saabsan saasaan ku gatay iyo siyaabo kale mujida meesha su-aal kale questionnairekaada haddii dadku rabta inaad ogaato sida internetka inay wax ka gataan waxa ku qasbay ama ku dhiirigeliya saan u weydii okay meeshan maxaa marka aan ku fahnay waxaan ku fahnay su-aalaha si loo develop gareeyo option kale weli waa wadi karaa haddaad tusaale aa rabtid mid kale tusaale ahaan profileka dadka aadno decision makingka ee internetka markay wax ka iibsanayaan okay qofku internetku inuu wax ku iibsado yaa saameeyey aarta inaa weydiisid okay waa kuwa marka intaan ka weydiinaynaa waxaan dhahaynaa living with yaa la nooshahay qofka waxaan dhahaynaa alone
keligiis inuu noolyahay haddii dumarta ay la nooshahay saygeeda marka inta badan cilmi baaristan dumarkay wax weydiinaysa marka husband adiga marka haddaa wax weydiinaysid dadka kale labadaba husband iyo wife waa ku dari kartaa friendsaan la noolahay familkeyga la noolahay su-aashan maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay wuxuu rabaa qofkan authorka inuu baaro qofka internetka wax ka gatay su-aal haddaad soo weydiin inta jeer internetka wax ka gadata haa waxaa la baarama qofkan yuu la noolyahay waxaa la isku xiri rabaa marka saameynta ay ku leedahay dadka aad la nooshahay inaad internetka wax ka iibsato su-aal noocaas marka daarta inaad baartid qaabkan u weydiid dadka waxaa kaloo rabaa qofku markuu internetka wax ka iibsanayo maxaa criteria ugu muhiimsan haddaad inaad su-aashaas weydiisid iyadana qaabkan isticmaal quality maa ku muhiimsan price maa ku muhiimsan comfortiga waxa inay fudud yihiin inaa wax geed maa ku muhiimsan styleka maa jeceshahay shirkadda aa wax ka gadanaysid maa ku muhiimsan waxa aa internetka gadanaysid maa muhiim ah dadka qaar waxay ku dhahayaan inaa internetka wax ka gato waxay ku xiran tahay waxaan gadanayo waxyaaba qaar dukaan caadiyan ka gadan karaa therefore I don't need to go to the internet to buy them laakiin waxyaaba qaarna stylekii waxyaabahaas dartooda u doortay marka meesha waxaa muhiim ku ah haddii questionnairekaada uu ku jiray aad rabtay inaad su-aal dadka weydiisid waxa markay internetka wax ka gadanayaan maxay niyadda ku hayaan su-aashaan aad weydii kartaa marka almuhiim aan isku soo duubo meesha maxaa ka fahmayay arday yahay haddii aad article inta furto oo aad ka hesha articlekaas su-aalaheedan u baahan tahay oo aad questionnaireka ka waaysa qaybta dambe ee articleka ha nixin ama ha niyajabin qaybta resultiga tag figuriska fiirfiiri figuriska adoo isticmaalaysidna saas ku develop garay questionnairekaada muuqaalka kale waxaan idinku tusaa waxaan hadda aan saas u isticmaalnay sideen ugu dhigaa word documenti oo sida qaabkan oo kale ah marka muuqaalka dambe ayaan ogolanaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taalla dhanka midig ee subscribe mahadsanid